haweenay waxay u guursadaan raggu afar arrimood weeye limaali hanta ay leedahay waa loo guursadaa oo aadamuhu adduunyada waa jecel yahay maal ay leedahay iyo xoolo ay iyadu shaqaysatay ama ay ka dhaxashay ahalkeedii waa loo guursadaa walixasabiha nasabkeeda waa loo guursadaa alxasabu walkaramu waa sifaadka wanaagsan ruux asagu u shaqaystaa karamka iyo xasabka la yidhaahda hadday sifaadkan iyo wanaaggan ka soo jeedo abtir iyo asal oo u yahay fir ka soo gaadh iyo ab ka soo gaadh u yahayna maxaa la yidhahdaa majdi iyo sharaf way kala duwan yihiin marka walixasabiha tafsiilka hadda idiin sheegay muxuu noqonayaa mida iyadu shaqaysatay wey waa gabadh caalimada deeqsiyada geesiyada inkastoo leeyahay intaasba ragga waa u daran tahay haweenka waa ku xunta waxaa leeyahay wax dumarka wax ragga ku ammaan ah oo dumarka ku ceebaa jiraa la yidhi hebel waa geesi waa ammaan waa deeqsina waa ammaan laakiin labadaaba waxaa leeyahay dumar waa ku ceeb ina kale ku darana ku dari maaye maxaa jiraa la yidhi waxay dhan waa deeqsiyad haddii haweeney la yidhaahdo ammaan kuma oho waxay dhan waxay baabi'inaysaa biilka carruurta wuxuu wadaadku soo shaqeeyey eber kii soo istaagaba 100 u dhiib biilkeedii way qaybinaysa bishoon 15 gaadhan baa biilka waa naga go'ay oo wixii aan dhibaawe war waxa ma naqaanay bakhayl ku dhal xooliye keen marka islaan deeqsiyada carruurteeda ku manqin baa reerkeeda ku wanjalaysa waa geesiyadna ninkeeday ku dili اللي عدو كاد عين ميسي فانتين بانو مالين هبين كاد تقبطان قوام بيبي قادي بالله يكون صوفيسر آثي حتى ويكون لقوينيس هويني مركيني فوليتاي نم حالي لها إيجيدها كل عضا في عن مكاد إنها تراهدون فانتين بانو مالين هوين قيسية دا ويدي بابيريس لابا كلا يكون دراسة لكن انت أنا كنت داي ولحاسبها شرف يوجو بالنماء يدو أي شقيستي باللو قرصدا أما isir iyo asal ay ka soo jeedo wanaagii baa loo guursadaa oo gobani xagga bayaashada ka yimid wali jamaaliha quruxdeed baa loo guursadaa iyadoo ay quruxsan tahay wali diiniha diinteeda loo guursadaa diinteeda dhaqankeeda diimeeda islaamnimada xijaabkeeda asturudeeda afgaabnideeda alla ka cabsigeeda xaal miiradkeeda hawlahaas loo guursadaa nabigu wuxuu inta mar hadii loo guursado oo bini aadam afarta dumar u guursadaan fadfar aduu kul guulayso wadaadoo bidaati diin fadfar ayuha almuslim way muslimo waxaad ku guulaysataa oo ugu raadaysaa bidaati diini bisaaxibati diin gabadha diin kale waxba marka qurux iyo xasab iyo maal ha eegine haddii rabbi iskugu daro waa khayr waa nabad iyo caano waa samnan wa casal waa saas doonayso si lagugu daray laakiin hadday kulmi waayaan oo intaasi ay meel ku iman waayaan xagga diinta inaad u iilataa la doonaya taribad yadaaka gacmahaadu ha khasaareen maxaa yeelay xadiidkan marka sheekhu muxuu keenay inuu shaahid u noqdo suxbatu ahli lkhayr suxbata ahli lkhayr dadka ahlu khayrka in la saaxiibo nolol lala wadaago in badan lala joogo hadda haweenaydaadu in alla idin kala geeyo mooyaan ama si kale loo kala taga mooyo waa saaxiibkaada khaaska wey waa saaxiib biljambi wey hadday marka aysan wanaagsanayn way ku baabi'ini حديثك ضعفي وكجوا دنا تحسين الشيخ الألباني وذكرنا والنبي كمان قال إلى وحن كمان قال من زوج تشيبني قبل المشيب إلى وحن كمان قال هوين الرئيسي سو مضح عضيسة أروبا قارن با هوين إذا نبكى بدن الدين تلاي ويكون بابين يسوي ويكون عمر الدجن غير كابا ضافي حق الدعدة ودورك كلها كاي دلنيرين بدأوا اللي حنجرهم موقنيس لأنه عذر بعد دير تاي وجوش على وقوعنا ما أنتوا رم بعد ما قنت هاي دول دلنا بدعي إن ضعار بتاكدي بحال ما حساب بترتوك هذه ضد يمرن يا محكمات الله يروح يسنين باب اللبنيس يا أبو كاتو كنت بعملنا هذا ليس هوانا لقما بقر هلا بس ومتقن نينك الرجع هوانا كمان بقر هلي كربا دور يطمن فايل باويا لبا mid markaa soo afxidho alxamdulillaah tira ku kala furi saadada waxay dhaheen ninka ragga 12 waran buu haystaa wadhan Soomaalidu haweeneyduna hal waran bay leedahay 12 ka waran markay ka dhamayso keedii ay haysatay bisay kugu dili saa qalbo u tuurayso halgaadayso waranka tag ayaduna ay dib u marsanayso oo gabanayso waaga dambe adoo waran la'aan ma cid la ka helayso aad warar badan baa jira
marka gabdhuhu waxa weeye hadday kugu xumaadaan waa musiibo hadday wanaagsanaadaanna ummadda wanaaggeeda ayuu ku xidhan yahay ummadda wanaaggeeda iyo dadnimadeeda iyo diinteeda iyo mustaqbalkeeda dumarkeeda laga eega ummadda dumarkeeda u hagaago waa ummad khayr ah hadday xumaadaanna waa dumaysaan wakii nabigu ka hadla calayhi salaatu wasalaam hadday xumaadaanna waa la dumahayaa marka daatuddiinkaas ayaa inoo aweeye ee badbaado inoo ah lagu dadaalo wixii kale marka waa wax laga samri kara wey